السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا صاحبيال kuna soo dhawaada 10 cusub oo xiiso badan. Maanta 10 wuxuu noqon doonaa sidii aad u ogaan lahayd qof kasta oo kamid ah saaxiibadaada WhatsApp inuu ku bloogay iyo in kale. Maanta waxaad kala baran doontaa dadka kugu jira WhatsApp-ka inta ku bloogtay iyo inta kale. Way dhici kartaa inaad taqaanid qof loo bloogo laakiin ma jirto inaad garanaysid inuu qofkan ku bloogay iyo in kale. way dhici kartaa inaad haddii aad profile-ka qofka weydid aad oran kartid wuu ku bloogay laakiin taas ma aha bloogis. maanta waxaan ku tusi doonaa sidii aad u ogaan lahayd qofkan WhatsApp kugu jira inuu ku bloogay in kale. runtii 10kan wuxuu noqon doonaa 10 aad u faa'iido badan. fadlan kanaalka subscribe garee siina share garee 10kan. ugu horeyn si aad u heshid application-kan aad ku ogaanaysid inuu qofkan ku bloogay in kale waxaad ka doonaysaa Play Store-ka mobilkaaga. Google Play Store-ka ayaad ka doonaysaa aba ka search garanaysaa. kadib marka Google Play Store-ka soo guda gashid waxaad ku qoraysaa application-ka magaciisa oo ahaa Who Blocked Me kuma ayay bloogay. kadib marka application-ka magaciisa oo ka ah aad search garaysid application-kii waa la soo degaysaa. kadib marka application-kii aad la soo degtid wuxuu ku soo saarayaa icon-kiisa caadiga ah waa kan. way dhici kartaa inaad heshid application-no la mid ah laakiin haddii aad imika kan amba kan 10 kaaga duubayo aan ku sheegayo aad si wacan u eegatid waad ka dhex soocan kartaa hadhow application fara badan ee ku soo baxaya. kadib marka application kugu soo baxo waxa ku sawran gacantaas oo dhexda kaga qorantay blocked. kadib marka application-ka sii guda gashid marka hore wuxuu ku soo saarayaa weji noocan ah. ugu horeyn marka application-ka la soo degtid oo open tirahdid wuxuu ku soo saarayaa weji tan noocan ah. wuxuu ku leeyahay terms uses-kan waa inaad akhridaa adoo intan yar waa si loo isticmaali lahaa amba application-ku uu shaqeynayo kale. kadib marka intaad dhameysatid amba adoo aan waxba akhriyin ba iska dhaaf oo ka sashadhaabo wax badan oo saawsi macna leh ma laha. marka soo dhaaftid xaggan caadiga waxaad ku qoraysaa qofka magaciisa aad rabtay inuu maxay heetolay qofkan ku bloogay in kale inaad eegtid. halka qofka magaciisa ayaad ku qoraysaa. kadib marka halka qofka magaciisa ku qortay halkan kale ku hooseysa select contact name-ka marka taabatid wuxuu ku geynayaa contact-ga caadiga ah amba halkii ay dadka kuugu save gareysnaayeen. kadib marka ku geeyo waxaad soo dooranaysaa qofkii aad rabtid inaad eegtid qofkanu muu i bloogay mise muu bloogay. application-kan wuxuu kaga jawaabayaa su'aasha ah qofkan ma i bloogay mise muu bloogay. dadka qaar ayaa jira inay ku qiimeeyaan qofkan inuu bloogay haddii qofka status-kiisa ka waayaan ayna uuna qofkaasi ay moodayaan inuu bloogay oo sawirka profile-ka iska remove gareeyo. way jirtaa Soomaalida inteeda badan qaacidada kale haysta waxa weeyaan haddii aan qofka profile-ka sawirkiisa ka waayo waxa dhici karta inuu bloogay weeyaan amba uu bloogay oranayaan. markaad halkaas select content-ga soo tahaatid qofkii aad doonaysay ayaad soo select garanaysaa. halkan kale qofka magaciisa waad ku qori kartaa. imika anuu qofkaas baan rabaa inaan eego inuu qofkan i bloogay iyo in kale. waxaad taabanaysaa star baad taabanaysaa. si hore kugu soo sheegay waa su'aal baa marka hore lagu soo dhigay. su'aashaas ayuu rabaa inuu kaaga jawaabo application-kii taas oo ah Who Blocked Me kuma ayay bloogay. kadibna star baad taabanaysaa. wuxuu ku leeyahay marka star u taabatid 4 su'aalood ka jawaab. halka ugu sareysa wuxuu ku leeyahay ka jawaab su'aalahan soo socda ee fudud ee wacay saduu ku bloogay hadii kale ku galgaranaysid. waa sax. togo horeysa wuxuu ku leeyahay awood ma u leedahay inaad aragtid last season-kiisa. awood ma u leedahay inaad aragtid last season-kiisa amba ma awoodeen inaad aragtid waqtigii ugu dambeeyay oo ka baxo khadka. waa tan ugu horeysa. haddii aad qof ka aragtid inuu ku muuqdo xilligu ka baxay khadka iyo haddii kale waxaad taabanaysaa yes iyo no. labada su'aalood waa kuwan. imika waxaan taabtay anigu no baan taabtay oo ma arko qofkaas. ta kale waxa weeyaan
haddii aad message oo ku amba aad u dirtid maxay hay toolay awood ma u leeyahay inuu laba calaamadood amba laba tigood saarmaan haddii uu message ku diro ma hal tig baa saaranta mise laba tigood baa saaranta waxaan oranayaa markaa hal tig baa saaranta oo taas ah ay tamaan taabanayaayo ah waxaan hal tig baa saaranta haddaan tan taabto waxa weeyaan laba tig baa saaranta marka message ku diro yes taasaan taabto tan kale waxa weeyaan can you see the profile picture your contact ma arkaysaa profile picture kiisa caadiga no baan oranayaa ma arko profile picture kiisa ta su'aasha ugu dambaysa ma awood ma u leedahay haddii aad istiraahdid group ku dariya haddii kale ma ku aqbalayaa mise kuma aqbalayo sida caadiga ah tan waa tin wada naqaano oo qofkii ku bloogay haddii aad istiraahdid group ku dal kama aqbalayo markaas no baan oranayaa marka no yiraahdo su'aalihii waan ka wada jawaabay markaan ka wada jawaabo waxaan taabanayaa continue oo si taabanayaa intaas iyo codka yar buu suuqa soo raacinayaayo ah has blog you with boqolkiiba boqol ayuu maxay hay tole ku bloogay wacays imika waad arkaysaa su'aaluhu ku weydiinaya waa qaar macquul oo muuqan kara qofkan maxay hay tole hadii aad ku weydiiso waan ku celinayaa qof kale hadana ku celinayaa qof kale ayaan ku celinayaa hadana saaxiibkan ayaan rabaa inaan eego inuu bloogay iyo kale su'aalaha intan oo dhan taa u sareysa waan arkaa waa sax tan laftirkeeda labada waan arkaa tan laftirkeeda profile waan arkaa profile-kiisa caadiga tanna group aan ku dari karaa marka continue aan sii taabanayaa continue markuu sii taabto waka kumu bloogin ayuu ku yiri saaxiibka Naasir boqolkiiba boqol kumu bloogin teeda kale inaad ogsoon tahay hore kuguma soo sheegin ma filaya laakiin si application-ku waa si lacag la'aan ayuu ku shaqeynayaa imika hadana wuxuu inoo sheegay inaanu ina bloogin saaxiibkeen Naasir qof kale ayaan ku eegaynaa oo su'aalaha waan isku dhex dhiganaa markan saaxiibkan ba hadana rabnaa inaan ku eegno kadibna taas waxaan oranaynaa no su'aasha sare wax filayaa in iska fahmaysan waa su'aalo yar oo easy tan laftirkeedana yes ma oranaynaa tan yes no tan yes ka waxaan eegi doonaa markana wuxuu nagu yiraahdo inuu si sax ah uga jawaabayo in kale waad tijaabin kartaa anigu waan tijaabiyay waka wuxuu ku dhahay kumu bloogin saaxiibka Jambir kumu bloogin marka application-kan wuxuu ka caawinayaa inaad ogaan kartid qofka ku bloogo iyo qofka kale waliba si sax ah oo aan shaki ku jirin fadlan haddii aad ku cusubtay kanaalka subscribe garee saaxiibada kale ee ku cusub kanaalkana aad iyo aad bay idin soo dhaweynayaa halkan waa Tuso Technology fadlan si aad u heshid casharrada noocan oo kale ay casharro ka mudnaan badan ba ku xidhnow oo subscribe garee mahadsanid